السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا مالك سودوني دافعي كي جوجتان إسكسو نقد وناكسن waxaa jira walaal asxaabteeda kamid ah oo social media dadka iga follow garay kamid ah wuxuu soo weydiiyay talo wuxuu yiri niihow xaaskaygu waxay joogtaa qurbaha hase yeeshee waxa dhacday habeenada kamid ah anigoo la hadlaya goor dambe oo adigu labadii habeenimo koodii barkii habeenimo ay ugu aadan tahay ayaan waxaan maqlay nin guriga ka dhex hadlaya oo waliba magaceeda ugu yeeraya waxay ugu noqotay wiiran xadin waan weydiiyay waxaan ku iray guriga yaa kula jooga waxayna cabaar intay aamustay ugu tircidana ila ma joogto hase yeeshee markaa kadib telefoonka way ugu damisay waxay ugu soo celisay saacad ka bacdi markii aan la hadlayna waxay ugu tiri adiga uunba iska malaysay ma ahan cidana guriga ila ma joogin walaalow shaki far badan baa igu abuuran walwal badanna waa ay arintani waa igu qabatay aniga iyadii waan ku qancilahay hadalkeeda maxaad igula talinaysaa horta waxaan rabaa inaan iraahdo markaan nin ahaan booska aad taagantahay aan naftayda istaajiyo horta walwal iyo walaac badan way leedahay qofkii adoo codka maqashay oo qofkii magaceeda ugu yeerayo haddana qofkii uu kugu inkirsan yahay oo ku leeyahay waxaas ma jiraan anigu waxaan ku oran lahaa Allah subhanahu wa ta'ala uga har oo waxaad samaysaa naf ahaantaada maadaama iyadiina ay dafirsan tahay adigina aad leedahay waan maqlay codka shakigaasuna uu jiro I know inay walwal badan kugu haynayso laakiin waxa fiican in aad bal arinta aad ka salgaartid sidii allaaliya sidii kale uga salgaari kartid dad baa dabcan magaalada la jooga waad waraysan kartaa ama waxaad samayn kartaa oo kale inaad ba ilaahay iskaga hartid haddii naf ahaantaada aad ku qanci weydid anigu marna kugulama talinayo inaad ciriiri iyo walwal iyo walaac aad noloshaada dee ilaa xad aad dee inaad isla hadashid aad gaartid inaad gashid anigu marna kugulama talinayo oo marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wadu ku jideeyay meelaad wadaad martid baa jira inkastoo mar walba aan ku oranayo la tasho culimada oo waxaad u tagtaa culimada waxaad tiraahdaa maxaan sameeyaa arintaas jirta bal waxay markaa ku gula taliyaan fiiri Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun anagu maartay cilmi diineed oo maanta aan ku fatwoonayo ma jiro laakiin tala ahaan hadad isoo weydiisay waxaan ku oran lahaa arinta bal u yara kaadi furiin iyo gabadhii inaad cidlo uga tagtid hadda oo aad kala faaruqdaan iyo wax la mid ah ku degdegin waxa dhici karta in telefishinku uu daarna oo codka halka uu ka soo baxay inkastoo tiri magaceedaan maqlay iyadina maadaama ay telefoonka kugu damisay shaki badan ay taas dhalinayso hubaal aniguba waa ku huba wallahi waxaan ku oran lahaa waxaad bal xigsataa intaad deganaan xigi kartid xigso oo markaa iyadii maaragtay haddii kale waxaad samayn kartaa inaad dhaarisid oo tiraahdo kitaab jaamaca igu dhaaro in uusan nin guriga habeenka kula joogin ama waxaas inaysan jirin hadday markaa ku dhaarato Allah subhanahu wa ta'ala uga har arinta Allah subhanahu wa ta'ala uga har laakiin waan ku huba haddaan again mar kale ku iraado booska ninnimo ee taagantahay haddaan booska aniguna fahanteed istaago oo xaaskayga ay taasu maanta dhici lahayd waxaan ku hubaa ma ahan waxaan kullay anigu tala xataa cid ma u raadiyeenba waan ogahay wadadan mari lahaa laakiin mar raba ilaa xad inaan ku dadajiyo oo maadaama aad kala fogtihiin masaafo idin dhaxayso de aan la garan karin codkan aad maqashay ama uu wax shaydaanku iska soo yeeriyay ay tahay oo wax sax ah aysan ahayn inkastoo wali arinta telefoonka ay dhigtay ay meesha ku jirto laakiin kulli waa arin walwalkeediyo walaaceeda leh bal asxaabtayda qaybta commentiga wixii taladiina idila tahay bal igula wadaaga laakiin aniga waxa ii muuqata maadaama qalbigaagu uusan ku xasiloonayn aadan ku deganayn dee dabcan nin maaragtay reerkiisa raba inuu dhaqdo oo reerkiisa u baahan baa tahay sidayga kaa muuqata waayo tala maad weydiiseen haddaynan kugu jirin rabitaan iyo tixgelin iyo dhowrid aad reerkaaga dhowraysid dee arrinta waad kala tuuri leeda waxaad odhan lahayd walaal ina kala daa marka waxaan ku odhan lahaa kugula talin lahaa bal arrintaa intii awooddaada isdeji wax allaaliya wixii kalood qaban kartid ama ila kale ood mari kartaa hadday jiraan dhammaantood soo wada xir kabacdi markaa dee ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saaro markaa wixii qalbigaagu ku degan yahay naftaada xasiloonay ku dareemaysa samee laakiin waa arrin walwalkeeda iyo murugadeeda leh waa arrin walaaceeda leh waana runtii qurbahan la soo aaday iyo kala maqnaanshahani malihiin xaasaska malihiin ragga in badan bay ka dhacdaa laakiin waa arrimo waa'ideetan aad u soo kordhaya waa arrimo walaacood iyo walwalkooda leh bulshadana saameyn weyn ku yeelanaya waxaan oran lahaa nin walbow intaad daacad u noqon kartid gurigaaga daacad u noqo xaaskaaga daacad u noqo waayo adiguba ma jeclidin lagu khiyaano waxaan dhihi lahaa gabar kastoy ninkaaga daacad u noqo hadduu kaa fog yahay kaa durugsan yahay oo meel fog uu kaa jiro
duruuftaa iskaga samir allah subxaana wa tacaala taladaada saaro rabbi bari maxaan idhahdaa soon waan ogahay waxyaabo badanoo waxaa jira dareenoo ilaahay subxaana wa tacaala inagu abuuray laakiin haddana dareenkaa ilaahay isagoo og baa laynagu abuuray adduunkana layna keenay intaynu xakamayn karno inaynu xakamayno oo naftu waxay rabto aynu ka celinno allahna subxaana wa tacaala dadka ahlujannaha ah sababtay jannada ku gelayaan waa naftiisa qofkii xakameeyey wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha annafsa cani ilhawa qofku naftiisa iyo hawadiisa markuu naftiisa uu celiyo xakameeyo weeye wuxuu janno ku gelayo wuxuu cadaab kaga badbaadayo wuxuu raalli ahaanshaha ilaahay ku helayo waxa adduunyada tan barwaaqadeeda lagu helayaa waa qofku markuu raalli ahaanshaha ilaahay subxaana wa tacaala uu ku jiro oo wax walbo aad samaynaysid inaad isweydiisid waxaan aan samaynayo haddii caawa aan dhinto aakhiro maxay iga tarayaan ma aakhiro dembi bay igu noqonayaan mase raalli ahaanshaha rabbigay baan ku helayaa wax walbo aad samaynaysid adduunka haddaa qof wax u qabanaysid haddii aad qof hadal ku oranaysid haddaad wax qoraysid wax kastood samaynaysid adduunyada waxaad kow isweydiisaa ilaahay agtiisa waxa kani horta muxuu ka yahay waan ogahay shaydaanku wuu ku sirayaa marro fara badanna isagaa ku gelinaya waxa kanoo shaki kuma jiro laakiin haddana saas way tahay shaydaanka in aynu iska celinno oo la dagaalanaa loogu talagalay waa daciif isagu suu ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay maaragtay kaydkiisu ama dhagartiisu shaydaanka waa daciif sida aad kaga guulaysan kartaana waa inaad ilaahay subxaana wa tacaala taladaada saaratid rabbi baridid isku xirtid walaalkaas waxaa oran lahaa ilaahay qalbiga ha kuu dejiyo allah subxaana wa tacaala kurbada adduunyada tan innagoo dhammaanteen sidaa u wada kurbaysanoo one way or another iyadoo waxay naga haystaan baan adduunka ka tegaynaa oo waxaa laga yaabaa inay carruurta kaa qabsato xaaska kaa qabsato ninka ku qaba kaa qabsato gaadiidka kaa qabsato waddankaa joogteed kaa qabsato sharciga kaa qabsato ammaan darra ku hesho faqri ku qabsado adduunkan one way or another iyadoo baahiyaha adduunka ka mida mid uun aynu qabno baa adduunkan layna ka wadaya oynu aakhiro ka aadaynaa shaki kuma jiro dadka qabuuraha ku jira dhammaantood fikrado qurux badan bay hayeen nin baan maalin waxaan arka hadal qoro wuxuu yidhi qabuuruhu waa meelaha dunida ugu qanisan buu yidhi maxaa yeelay wuxuu yidhi fikrado fara badan oo qurux badan baa ninkii lahaa isagoon adduunyada cidna la wadaagin waxna aysan ka tarin buu ka tegay oo qabrigaa la galay marka saa darteed waxaan ku oran lahaa walaalkayo ilaahay talada saaro rabbi qalbiga allah kuu dejiyo ilaahay qulubtaa kuu qaboojiyo ilaahay raxmaan ha kaa dulqaada dhibaatada ku haysata wallahi waa mushkilad inteeda leeg waa walwal waa walaac maxaan radaa dad badan oo rag iyo dumar bale oo mushkiladda tan ay haysato oo waxa kan dareemayaa jira dhammaantiin baa allah idinka qaado ilaahay subxaana wa tacaala qof kasta oo muraadle muraadkiisa allah u sakhiro mid kasta oo adduunyada ku dhibaataysa ilaahay dhibka ka qaado reer kasta oo dhibaata dhex taala allah subxaana wa tacaala dhibaatada dhexdooda taala ilaahay raxmaan ha qaboojiyo oo maaragtay biyo qabow allah ku shubo oo ilaahay maaragtay gurigooda guri kalgacal allah uga dhigo qof kastoo idinkaydi ka midaba ilaahay in fara badan barya ilaahay in fara badan barya wax walbo adduunyada tan aynu haysanaba kulli waynu ka tegaynaa ilaahayna ha laga baqo waxani waa adduunyo maalmo yar daqiiqada yar uun baan ku raaxaysanaynaa kabacdina waa laga tegayaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay intaynu dib u kulmayno meel kastoo adduunka aad ka joogtaanba wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh